waxaynu naqaanaa cumar isagoo dowladdii markaa ugu ballaadhnayd ee islaamiga xukuma oo shaam oo dhan iyo masarba ka qabsaday nimankii dowla albizantiya romaniski oo dhankan barigana iyada dowladdii kisre dhammaanteed ku kala tegey ghazawaadkii waaweynaaye qaadisiye iyo naahwandi iyo wax la midii markay dhaceen iyaga dhammaantood dowladdii kisra waa laga takhallusay dowladda intaa leg isagoo maamulaya cumar ayuu wuxuu faray majuustan iyo dadkan sabaayaagee lasoo qabsaday inaan madiine la keenin dabeetana saxaabada badh baa ka codsaday inuu cid ugu oggolaado kan ii oggolow kan ii oggolow ragga qaar buu u oggolaaday raggu wuxuu oggolaaday waxaa ka mid ahaa mugiirata bnu shucba mugiira wuxuu keensaday nin la yidhaha abulu'la almajuusiy abulu'la nin farsamo yaqaana oo baaladan wax lagu ridqo sameeya buu ahaa waxaan uu shaqaynayay markaasoo ninkan baa addoon uu ahaa mugiirata bnu shucb mugiira bnu shucb maalintii wuu fasixi jiray wuu soo shaqayn jiray 4 dirham meelahaasi buu keeni jiray saasuu ugu shaqayn jiray akhiiran wuxuu go'aansaday inuu cumar ka takhalluso sababtu waxay doontaba ha noqotee midi laba af labu tashay ayuu samaystay dabeetana salaad subax buu soo galay cumar markuu allahu akbar yidhi salaada galay ayuu halkaa garabka ka taagay haddana wuu ka fujiyey keliduu ka geliyey uu isu wareejiyey saxaabadii ka dambaysaa ku soo dhaqaaqday 13 nin buu dhulka dhigay uu midada la dhex raacay wixii masaajidka ku jirayba 13kii 7 geeriyooday laakiin inta badan culamaa taariikh marka la warramayo wuxuu baa la sheegaa amiirul muuminiin baa geeriyoodo dadka kale lama soo hadal qaado laakiin 13 nin buu dhulka dhigay oo 7 ka mid dhaawacaasi u dhimatay oo uu ka mid yahay cumar ibn al-khattab dee nabiguna calayhi salaatu wassalaam wuxuu ku tilmaamayaa qofka dulman loo dilo inuu min ashuhadaa ka tirsan yahay waa dadkii aakhiro axkaami shahaada qaadanayay shahiidka axkaamtiisa laakiin adduunka oo la maydhaya dee la kanfaya lagu tukanayay waa sanadkii 23aad ee hijriyada ay dhacday